السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa Soomaali Maxamed meel kastoo aad joogtaan dhammaantiinba. Salaan kale iyo laaba. Ramadaan mubaarak. Jumca Saciid. Dabcan inta ay jimco u tahay iyo inta jimcihii la dhaafayba weli kale anaga jimca inoo tahay waa maalinimo. Qorraxdii mar hadday soo jeedo waa maalinimo. Marka Jumca Saciid, Ramadaan mubaarak dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan Soomaali Maxamed. intaa ka sokow waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo horta waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrinta Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cajuun xaqiiqadeeda inaan ka hadlo ayaan aad u jeclaan lahaa iyadoo waqti soona lagu jiro dadka Soomaaliyeed ee marba fiidyow iyo hawl iyo ma garanaysaa uun la daba wado. waxaan aad u jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan xaqiiqadeeda arrinta ayada ah oo aan aaminsanahay in qof iiga dhow xaqiiqada ama xoogaal u ahay inaanu jirin. marka soo dhawaada meel aad joogtaanba soo dhawaada. hahey intaa ka sokow horta waxaan jeclaan lahaa Soomaalidu marka ugu horeysa hawl aanay ogeyn oo aanay xoogaal ka ahayn bay ka garnaqdaa ama ay waxa weeyaan sheegaan oo wadwadaan. marka waxaa wanaagsan kolley dee hadday noqoto dhinaca diinta iyo hadday noqoto dee dhanka dhaqankaba xaajo aadan xoogaal ka ahayn inaan garteeda la naqin baa wanaagsan. marka ugu horeysa Soomaali Maxamed sida aan anigu social media ka arkay waxay naqeen gartaasuna waxa weeye mid aanay xoogaal u ahayn. arrintaas Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cajuun horta cidi iiga xoogaalsani ma jirto. muddo badanna indhaha un baan ka eegayey waan arkayey waxa weeyaan anigu Safiyana asxaab aan la aha oo in muddo aan la ahaa. Cabdi Ciisena sidaas leeg baan asxaab u lahaa in muddo ah. muddada aan asxaabta la ahaa anigu labadooda waxa weeyaan horta marka ugu horeysa waxay isku barteen oo meesha isku barteen anigu waa ogaa waxay ahayd silsilad markaa la qabanqaabinaya hawsheeda oo Cabdi Askari Tube ka baxaysay. waxaa la odhan jiray haddii aanan qaldanayn habla iyo xishoodkii halkee baa ku xorteen. silsiladaasay marka ugu horeysa isku barteen barashadoodu halkaasay ka bilaabata. isaguna abwaan ahaan buu silsiladda ugu jiray iyaduna fanaan ahaan oo inay heesto oo heesaha ka qayb qaadato baa loo soo geliyey. halkaasay iska barteen. markay is barteen Safiya iyada xaas bay ahayd waa la qabay. waxaa qabay Cabdinuur Daljir baa qabay. Cabdi Ciisena isna reeruu lahaa markaana wuxuu joogay Qaahiro oo gabadh baa u deganayd Qaahira oo wiilna u haysay. laba reer buu lahaa buu lahaa. gabadhna daroor buu kaga yimid oo daroor bay joogtay. midna wuxuu ku qabay meesha la yiraahdo Qaahira ay u deganayd. labadaa dumar u lahaa iyaduna xaas bay ahayd oo waa la qabay. horta iyadoo saas tahay oo ay halkaa xaaja marayso ayaa bal marka ugu horeysa Soomaali Maxamed
hawshan dadka ka hadlaya ama ka sheekeynayahay waa laba nooc gebigoodu waa laba nooc keliya waa laba qolona caadifad qabiil baa meesha soo gelisay oo ama xagga inantay ka soo jeedaan gabadha Safiya ama xagga Cabdi Ciise Cajuun bay ka soo jeedaanoo dee iyana ma garanaysaa labada dhinac oo caadifad qabiil baa soo gelisay oo ay uga hadlayaan barnaamijka oo soo gelisay qolana waxa weeye waa subscription ama subscribe iyo like iyo share baa soo gelisay waa youtuberada iyo qolyahan page-ka facebookyada leh oo waxaanay ogeyn bay iyana shubayaan labadaa qolo midkoodna xaqada kama sheegin sida ilaahay ugu ogyahay anigu waan soomana wali cadcadii ma dhicin meesha anigu aan joogo waa soomana sabab aan been u sheegaana meeshii ma taala anoo sooman arrinta xaqiiqadeeda idin sheegaya horta Soomaalidu waxay tahdaa nirig hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho hal xaaraani nirig xalaala horta ma dhasho marka ugu horeysa Soomaaliya run baan idin sheegayaaye markii wiilkan iyo gabadhan ay isbarteen dee qaab fan oo bah faneed baan wada ahayn oo fanaaniin iyo abwaaniin iyo wax noocaas aan wada ahayn annagoo ay xaajadu saa tahay oo dee hawl fanaannimo iyo ma garanaysaa wax noocaasa meeshii lagu wada galay ayaa waxaa timid oo maxaan dhahay la isku bartay qaab noocaasa la isku bartay aduu qaabkaa fankaa la isku bartay markii dambe waa la sheekaystay marka la sheekaysanayo ama la wada hadlayo Safiya waa la qabaa Cabdi Ciisena gabadh buu inan buu qabay oo u deganayd gabadh buu qabay oo u deganayd Qaahira sheeka la bilaabo bilaahi baan idinku dhaariyay laba qof anigu midkoodna dhinac saari maayo wallahi baan midkoodna dhinac u saaray midkoodna inaanan waxa weeye dee qabriga midkoodna ciidda iga xigi maayo midkoodna ciidda iga xigi laakiin waxa weeye arrintii wax soo noqnoqday oo socday oo dhan walba u taraaray oo si walba yeelay bay noqotay markaa ka fursan mayso wuxuu yidhi ninkii jiray wax badan baan ka gabangaabsaday way igeliyeen warada Soomaaliyeed marka ugu horeysa in badan baa indhaha ka eegay oo waa arkay oo waxay noqotay waxaan istaagayninba horta arrintan aan idin sheegayo sheer gareeya ummadda Soomaaliyeed u sheega xaqiiqada taabsiya bilaahi calaykum runtu waxa ay tahay tusa labada qolo ee u kala doodaya qoladii ku naxaysa ama ka naxaysa iyo kuwii ku farxayaba indhaha ka geliya u sheega Soomaalidu had iyo jeer marka ay saa ku eegaan xoraan talo waa qolama labada qolo waa midkee war anigu midna ma yihi Cabdi Ciisena la reer ma yihi Safiyana la reer ma yihi laakiin sida ilaahay ugu ogyahay xaqada sheegaya ninkii igu jeclaanaya iyo ninkii igu nacyow aday ku taa anigu xaqiiqada say tahay baa sheegaya arrintani waxay ku bilaabatay marka ugu horeysaba qalad iyo xaaraan walaaqasho bay ku bilaabatay waxayna ugu bilaabatay waxa weeyaan Safiyada waa la qabay oo wiil baa qabay nin baa qabay Cabdinuur Daljir baa qabay taariikhdu xilliga ay ahayd waynu wada garanaynaa silsiladaas xilliga ay soo gashay waynu wada garanaynaa gabadha waa la qabay isna reeruu lahaa iyana reer bay lahayd sabab loo qof oo reer u lahna u sheekaystaan oo waliba de isagu mid saddexaad waaba ku saddexayn karaayo waaba loo baneeyay diin ahaan hadaynu eegno laakiin sabab de gabadhu iyadoo la qabo ay nin kale ula sheekaystaa horta meesha kuma jirto waa kow meesha ay ka bilaabatay hawshu baan idin taabsiinayaa marka ugu horeysa anna aan xogagaalka u hagay ilaahay ugu ogyahay hawayaan marka ugu horeysaba meeshii hawshani ka bilaabatay baa waxay ahayd xaaraan iyo qalad iyo baadil bay ahayd arrinta xaaraanta ku bilaabatayna inay xalaal ku dhammaato waxa weeyaan laa yumkin wax macquula inta badan ma noqoto qofkii odhanaya waa macquulowna adigu golaha iskeen oo ka hadal intaa markay noqotay anigu arrintoodii waan ogaaday mudduu iga qarinaya Cabdi Ciise
safiyana way iga qarisa inay sheekaysteen markii muddo layga qarinayay baan anigu ogaaday cabdi ciise waliba ii sheegay guri muddo kadib waniyo hawshaasaa jirta waxaan ku cabdi ciise walaa saaxiib gabadha miyaan la qabin suyaha ninkaasi ma qabaa haa maxaa dhacay baan ku yidhi haddaba oo seebay u dhici kartaa maadaama aad ogtahay in gabadhii la qabo in aad sheeko la wadaagto adigu waxaan ku idhi anigu safiya waan la hadla safiya kilibkaygan way daawan doontaa safiyay haddii hadalkaa aan ku leeyahay kelmadi ay ka qaldanaato haddama garata ama aad been ka sheegto ilaahay cadaabtii waxa weeye ha kaa waraabiyo aniguna haddaan kelmad beena ku daro ilahay cadaabtii haga waraabiyo marka ugu horreysa anigu kelmad beena ku dari maayo adna been ha ku darin cabdow adna ha ku darin labadiinna midkiinna sida xaqiiqadu ay tahay baan labadiinaba idiin sheegaya dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka daaya dadkana dhibaataynaysaana marba fiidiyowga yar ee maxaan dhahay caatada ah ee ma garanaysaa musalsalada aad u soo dhigaysaan ka daaya ee sooman ee ramadaanta ku jira ka daaya dadka waad wareeriseen dadka waa dhibteen ilaahay intaad ka baqdaan iska daaya waxan ilaahay intaad ka baqdaan dhibaatadan iyo hawshan aad dadka ku wadaan isma ogidin malahe ka daaya kulli dad ilaahay ka baqaya ma tidin haddii xataa aad ilaahay ka baqaysaan oo ay macnaha sida dee alla ka biqiin uu ma garanaysaa xaqiiqo yahay dee dadkii oo sooman xataa soondaa daba marin lahaydeen dadkii oo sooman marba maydaan dambaajiseen oo been iyo bele iyo baas kumaydaan shubteen dadka dhibaatada laga daayo anigu arrintaa iyada ah markii aan ogaaday waxaan sameeyey ama aan idhi cabdi ciise hawshaas suurtagal maaha baan ku idhi safiyana waan kala hadlay waxaan ku idhi safiyaay arrintaa koolkaa la isugu jiri jiro muddo fara badan baa la wada hadli jiray muddo fara badan baa la wada hadli jiray koolkaa had iyo jeer wada jiri jiray markaasaan ku idhi safiyaay hawshani macquul maaha waxaan ku idhi weliba safiya kala aamusa haddii koolkan iyo waxan iyo barnaamijku uu keenaya dhibaatada bal aamusa oo adiguna safiya ay aamu oo koolka ka daa isna ha kaa daayo waayahay marxabiya guddoon sidii waa lagu dhameeyey ilaahuma been baan sheegaya galabnimadkii dambe iyadoon waxba ka soo wareegin baa safiya qoraal ii soo qortay waxaa igu tidhi laabdaweeyow sida bunka ayuu ii hayaa cabdi ciise sida bunkuu ii hayaa qoraalkeedii whatsappka ku jira haddii aad doonaysaan oo ama aad jeceshihiin ama xaqiiqadeeda loo baahdo waan keenaya sida bunkuu ii hayaabaa igu tiri ilahay ogyahay waxaan ku uhi ma sida bunku ku hayaa haa hadduu sida bunka ku hayo hawshiina wata idinka idin taalla maadaama oo dee allahuma abalaqtu waxa weeyaan haddii anigu aan sheegay wixii xaqiiqada ahaya runtii iyo inaanay habboonayn hawshan sheekadeedu iyo in la sheekaysto misana dee gabadhii weliba ay jeceshahay wallaahi iyo bilaahi inuusan isagu igu odhan iina soo dirin safiyaa waxay igu tiri sida bunku ii hayaa waa la qabaa nin baa qaba meel bayna u degantahay sida bunku ii hayaa bay tiri markaas anna ku idhi saasa hadday saa tahay macsalaama waaye hawshiina wata sidii baa hawshooda lagu watay muddo badan kadib anigu cabdi ciise waa isku dhacna annagu iyo cabdi ciise waa isku dhacna annagaa iskaya isugu dhacnay in muddo ah baan isku dhacsanay fara badan safiyase isku aanaan dhacsanayn waa wada hadli jirnay oo caadi baanu ahay maalin maalmaha kamid ah safiya ay soo wacday waxay u tiri ninkii nin dabeecad xun buu noqday dhibaato badan buu macnaha iyo wuu cabanayaa sidaa darteed ninkii inaad la hadashaan doonaya waxaan ku ihi maadaama annagu ma wada hadlo hadda waan ku ihi waanan isku dhacna haddiise ay saa tahay waan la hadlayaa waxaa lagu heshiiyey anigana la iga qariyay markii dambe si aan ogaaday in isaguna uu tago meesha la yidhaahdo dee hargeysa iyaduna ay america ka timaado hargeysa timaado haddama garata dee reerka iyo barnaamijkiisana ay iska soo dhammayso oo hawshiisa soo gebagabayso maadaama ay reer leedahay hadda bal eega maadaama ay reer leedahay inay hawsha reerka soo gebagabayso bal ilaahay baan idinku dhaariyay soomaaliyay gabadh iyadoo la qabo inta la shukaansaday markii dambena la yidhi iska soo fur oo iska soo furtay
horta meherka qabanaya ee Soomaali taqaana ama dadka islaamka yaqaanay bal waa tee bal ii sheega idinku bal idinkaan idin weydiinayaa bal sheega meherka bal sheega idinkuba raalli ahaado waa la soo wacayaa dabcan raalli ahaada dad baa soo wacaya على أي حال وحوي أنا نكي سوعة يعني كان يسوع بحقها وشيء إن بدنا وكجا بصدق تذكر سوماليا ده وحى يشوف يعني يوتيوب لا يعيان يوحنا يشوف يعني كلا وضع أنا شيء يعني وحبك ما تشرين والله وابين يبلاية الله بقول كيف سجاش وابين مد كلمات كهرو أنا مو قانين دت كان يوتيوبر هذا يبيجت كسومالي أسمايستي بقول كيف سجاش يسجالو حي وش يعني بين تاي ما تكور مو قانين bal qof aan xaajadii ogeyn oo aan xoogaal u ahayn oo aan labadii qof midkoodna aan aqoontoodii hadda ka hor aan aqooninba oo aan midkoodna aan aqoonin oo laga yaabo xataa qofka ugu dhowi inuu social media ka arkay ayaa ka sheekeynaya sidanay ahaayeen caynkanay ahaayeen Cabdi Ciise iyo Safiya Tusma hawsheedu horta waa sidaa waxaa timid isu imaashahooda aniga markii Safiya soo baxay wiilahaas waxa igu tiri ninkii wuu diiday inaan u imaado wuu diiday oo uu cabanaya wuxuu leeyahay muddo fara badan ayaan maxaa ku sugay imikan ima soo socotay Cabdi Ciise waan raadiyay telefoonka igama qaban telefoonka WhatsApp-kiisa waan bal wakaas been buu sheegay yiraahdo waa hadii Ilaahay laga baqayo ama runtii xaqiiqada lagu soo dhawaanayo marka waxa meesha yaala horta Soomaaliyeed waa hal xaraani nirig xalaala ma dhasho waa meesha taala war Cabdi Ciise iyo Safiya waxay isugu yimaadeen xaraani iyo qalad bay ahayd iminkana waxay umada Soomaaliyeed ku wadaan waa qalad annagaana ogeyn idinna sheegayna ama qaata ama ha qaadanina inta ka sokow waxa la isugu yimid gabadhii waa la hadlay waa wada hadlay waan soo socdaa waan imanayaa anigu mar walba tiirkii uu ii go'an yahay waan imanayaa bay tiri hadda ma garata ninkaasi ama ha ila hadlo ama ila hadlin waa la isku yara dhaca Cabdi Ciise kadib baan sala waan la hadla dhibaatadan iyo hawshan jooji baan ku uri hawshu waa iska dhamaata Safiya way tiri Hargeysa la isugu yimid hotel baa la degay meel baa la deganaa dad kale way isqabeen iyo meher baa isu hayay war been baad Ilaahay u sheegtay ismay qabin waanu soomana been ma sheegi karno wallahi baan isu qabin iyo billahi ta'ala isma qabin ismana guursan marka inay kadib u socdaan guur way jirtay laakiin laba qof oo isqabo oo xariisu haya may ahayn de ma run baa doonaysaa mise been may ahayn laba qof oo xariisu hayo annagaana runta idin sheegayna iyo sida Ilaahay nagu ogyahay wax meher oo isu hayay labada qof horta ma jirin horeyso iyo dambayso toona xataa haddii ay ismehersadaan oo kadib ay haddan ay dhacdo inay ismehersadaanna anigu u malaymaayo sida xarigooda iyo meherkooda u dhacayo sababtoo ah dee diiniya laba qof oo marka ugu horeysaba sheekadoodu ahayd iyadoo la qabo gabadha in la sukaansado iyo iska soo fur ay noqoto sida isugu xidhmayaan diintu ma banaynin kuma xidhmayso cid kasta loo geeyo mashaaikhdana waa uga dambeynayna marka waxa waxaan leeyahay war hawsha iyada Soomaaliyeed meesha waxa ka jira horta waxa waa ilmadii xaaska baalka iyo xaaska leeyahay waxa la yiri marka uu wax qabto ama uu de nolol wax magaranaysaa ama xoolaha ahaado ama qof ahaade uu qabtay uu cunayo uu ilmeeyaa hadda isaga wax cunayaba isagii wax cunaya buu ilmeeyaa marka meesha horta waxa ka socda waxa waa ilmadii xaaska qof isagii intuu wax qabtay oo wax qaniinay oo wax dhibaateeyay haddana ooyaya baa meesha Soomaaliya ka socda midda kale waxaa meesha taala Soomaalida oo aan kula yaabay anigu waxaa lagu oranayaa inan baa ilmaysay ilmay qubtay waa tacadi baa loo geystay war Soomaaliya bal su'aal baan idin weydiiyay
inantu hadday ilmayso oo maxaa gabadha lagu qaldamay ama waxa weeye gef loo geysanayo ama la dulmiyayo inaynu u wada doodnaa waa xaq waa sax weeye laakiin maxaa idin diiday inaad garta laba dhinac qaadaano bal isagana aa waraysataan oo weydiisaan social media waxaa lala yaacaya oo muddaba lala ordayay Safiya Tusmo waa la dhibaateeyey Safiya Tusmo sidana loo gala Safiya Tusmo sidana la yiri Cabdi Ciise sida la yiri idinku miyaa ogtihiin isagu miyaanu bini aadam ahayn xuquuq miyaanu lahayn miyaanu qof macnaha sida ay iyadu u danqanayso ama ay damiirka u leedahay ama aad ugu danqanaysaan iyada ama dabcan sharafteeda aad u dhowraysaan isagu miisan sharaf u lahayn talabaade kale haddii habluhu sharaf leeyihiin ragga maxaa sharafti ka qaaday raggu ma bilaa sharaf ba haddii macnaha Soomaalidu imika inta aan arkayba gabadha sharafteedii horta gabadha iyo wiilka sawirada la soo dhigay waa arka labadoodu way ku wada jiraan midkoodna ma qarsoone labaduba waa muuqdaan sabab loo yiraahdo gabadhuna waxa weeyaan sharaf bay leedahay wiilkuna sharaf ma leh war Soomaali maxameday de ma jirto ma fahamtay anigu ka hadli maayo mana doonayo inaan ka hadlo qofka soo dhigay sawirada waanan oga wallahi waa oga qofka soo dhigay sawirada waan oga hadda ma garata ka hadli maayo inaan ka hor dhacna ma jecli sawirka qofka soo dhigay ee keenay ee golaha keenay wallahi iyo billahi tallahi hadaan idin la wadaago qayladan iyo buuqan iyo dhibaatadan aad macnaha wadaan Soomaaliyeed waa joojin leedeen haddaad ogaan lahaydeen qofka soo dhigay sababtoo aqliga bini aadamka ma geli karto qofkaas soo dhigay sawirada caynkaas dad baa waxay leeyihiin Cabdi Ciise soo dhigay dad qaar baa waxay dad kala soo dhigay wax noocaas haddaba mid idin sheegaya qofka soo dhigay sawiradani horta Cabdi Ciise aqlaad leedihiin sawirada noocaas hadduu soo dhigay anigu shakhsiyan de qofka bini aadamka aqli buu leeyahay oo waxbuu daraasadeeyaa marka laba qof halka ka wada cawdaan ee wax wada sheegaan de marka aad labadiiba dhageysato ayuun baad gartii naqi kartaa horta marka ugu horeysa sabab Cabdi Ciise sawir isaga iyo gabadhaasi ay ku wada jiraan ama ay isdhunkanayaan ama ay wada jiifaan u soo dhigi karaay meeshii ma taalo sababtuna waxa weeye hadduu gabadha fadaxaynayo iyadoo kaligeedu soo dhigi lahaa hadda ma fahamtay marka horta marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed sawirkan iyo sawiradan cida soo dhigtay waa macruuf isna uu qofkaasi wuu isgaranayaa ilaahay ka baqo ilaahay intuu ka baqo ummadda dhibaatada ka daayo intuu ilaahay ka baqo ummadda dhibaatada iyo waxa weeye beenta ka daayo Soomaaliyeed marka ugu horeysa ehel iyo asxaaba waxaan idin sheegayaa arrinta iyada ah in si jihadii ay lahayd laga kaxeeyay laga halaabiyay laga duway meel aanay lahayn afka loo saaray Cabdi Ciise iyo Safiya anigu midkoodna dhinaca saari maayo midkoodna qabriga ciida iga xigi maayo mid labadaba asxaab baan la mid kaliya anigu asxaab lama yihi si gooni oo aan uga hadlaana ama aan u idhaahdo qofkaasa saasa ama aan dhinaca u saaraana ma taalo meesha ilaahayna iguma oga waxa weeye xaqiiqada meesha taala waxa weeye Soomaaliyeed marka ugu horeysa Safiya qaabka ay isaga ilmaysiisay ee ay social media Soomaalida ugu timid ee ula wadaagtay qalad buu ahaa hawshuna markii ugu horeysa waar idin sheegay markii ugu horeysa waxay ku bilaabatay qalad bay ahayd arrin qalad ku bilaabatay markii dambana qalad ku dhamaatay oo social media unsa u ordaysa hadda ma garad hadda markii idin soo gaadhay baad ogaateen arrintani markii idin soo gaadhay ayaad ogaateen laakiin anagu waxaan ogeyn ilaa barashadii iyo ilaa up to now baan ogeyn ilaa maalintii ay waxa weeye uu qaahire ka yimid ilaa maalintii maxaan dhahay anigu Cabdi Ciise iyo Safiya Cabdi Ciise isor barana Cabdi Ciise ayaan isor barana Safiyana kadib baan isbarana hawsha fanka iyo waxa saaran isku barana marka waxa weeye anigu waxaan oran lahaa dadka xaqiiqada og
horta cid aniga xaqiiqada igu ogeyd oo macnaha labadooda igu saddexaysay may jirin laakiin dadka xaqiiqada og war xaqiiqada ka hadla intaad ilaahay ka baqdaan xaqada ka hadla oo idinkoon reernimo iyo caadifad qabiil iyo waxyaaba caynkaasi aanay meesha idin soo gelinin war xaqiiqada ka hadla oo ilaahay ka baqa oo dadkan waxa weeye dee macnaha indhow kala sameeya odayaal baa ka hadlay waxa weeye meelo fogfog bay gaadhay cuqaal bay tagtay waxa weeye nin waliba tii isaga la qumanayd ayuu qoorta gashaday oo uu la orda ilaa social media iyaga laftooda yimaadeen ilaa cuqaashi baa social media orday soo timid kuwaasina haddii caqli jiro oo dee meesha cuqaalnimada iyo caqligu shaqaynayana dee social mediaha arrintan taalla iyana may ka daba keeneen oo may keeneen waxaan filayaa de malaha waxa weeye de caqli intaa dhaamay waayeen marka arrintani soomaaliya horta taxanay noqota taxane bay noqota waxaanse idiin sheegayaa gabadhaasi markay timid meesha la yidhaahdo Hargeysa waxba may qabin dhibaato ma qabin laba jeer intay maqnaydee waxa weeye ay sooba socotay laba jeer bay iyadu la soo hadashay noo garnaq bay igu tiri noo garnaq bay igu tiri wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi annagoon isaga wada hadlin oo aanan wada hadlin oo aanu isku dhacsannahay baan waca arrintaa darteed markii labaadse waan hela waa wada hadalsiiyey adigu isagaa la hadlay iyadana sidaasi leeg hawshii waa dhammaatay Hargeysa la isugu yimid muddaa la wada joogay arrintoo ay u socdeenna wax kale ma ahayna waxay ahayd dee inay macnaha la isguursado baa loo socday sidii aniga dee la igu sheegay wax anigu wixii aan ogaa iyo intii iyaga aan ka arkay ayuun baan sheegaya intaa ka sokow gabadha la yidhaahdo Safiya Boorama aade isku dhucu meeshuu ka bilowday weeye Boorama gabadha la yidhaahdo Safiya aade markay Boorama aaday sim card isagu uu leeyahay oo Cabdi Ciise leeyahay ayaa telefoonka ugu jiray gabadhii markay Boorama tagtay telefoonkii marna waa laga qabanayay mar waa lagu daminayay mar rag baa wax noocaasa ka qabanayay adigu wax noocaasa dhibaato caynkaas buu isagii arkay isagii waa qaylqayliyey wuu boodbooday wax noocaasoo ma garanaysaayo adigu muddo macnaha waa la isku dhaca wiila soo hadlo inuu dhibaatadaasaa jirta buu igu yiri waanse idiin soo kala dhaafaye gabadhu markii ay ka imanaysay America dee nin ay isjecel yihiin oo muddo sheekaysanayeen oo ay xataa ninkii isaga soo furtay bay u socotay laakiin umay soconin nin rakaataynaya oo sawirra ka haya oo sida arrinta loo dhigay social media loo wadwado nin sawirra ka hayo video ka hayo oo dhibaataynaya umay imanaynin anna waa ogaa hadda ma garata waxay u imanaysaa inay jeceshahay oo macaaninkii isaga soo furtay bay u imanaysay iyada oo noocaas oo ay caynkaa tahay baan waxaan arkayaa iyada oo la leeyahay oo weliba aan iyada lafteeda arka inay leedahay muddo 2 sano ah waan rakaataysanahay waa dhibaataysanahay seebay u dhici kartaa dee anigu ma garanayo kolley anigu garan maayo calaa ayi xaal aad baan idiin salaamayaa Soomaali Maxamedey arrintaa iyada ana waxaan filayaa hadda ku soo koobi mayso mar labaad iyo mar saddexaad iyo 100 jeer waa ka hadli doonaa haddaanay dhammaanin oo sida ay tahay wadadeeda aan la qaadin oo dee aan siday tahay loo ansixin oo loo macnaha dhibaatadan jirta aan loo daminin oo weliba iminka Safiya fiidiyoyadan yaryar ee ay soo dhigayso iminka iyadaa soo dhigta Cabdi Ciise hal fiidiyo iyo hal sawir oo soo dhigay ilaa iyo hadda anigu ma arag sida ilaahay ugu ogyahay mana maqal Safiyana kamaydaan maqlin oo Safiya ma oran sawirkaas soo dhigay fiidiyowga midnaba hadda ma garad qofka bini aadamkiina waxbuu soo dhigayaa aqli noqon mayso qofku hadduu waxayo ilo qofku 2 jeer ma ceeboobo hal mar buu ceeboobaa qofku ceeboobaa 2 jeer qofku ceeboobaayo ninkaas waxaa lagu eedeeyay inuu sawir soo dhigay inuu qof dhibaateeyay inuu wax duuduubay hadduu sawir soo dhigayo ama uu fiidiyo soo muxuu mar soo dhigi waayo maxay tahay sababta uu loo leeyahay waxbuu soo dhigayaa
isaguna hal mar buu bixiyey warays iyo laba jeer oo kale dama filaya hada ma garata qofka wuxuusan ahayn lagama raadiyo qofka wuxuusan ahayn lagama raadiyo Soomaali Maxamedey imika dhibaatada waxa wadaay anna aan ogahay horta waa Safiya walaalay dhibaatada iska daa dhibaatada imika aad wado bal horta jooji dhibaataduna wax kala ma ahay waxa weeye fiidiyoyadan marba intaad in yar soo jarto aad soo qaadayso adna aad og tahay isla uu og yahay walaalay jooji haddii aadan joojinaynin dadku way sooman yihiin waxa weeyaan bal inta ay afurayaan bal ka daa hadda ma garata kulli haddii xishood jiro dadka xataa xilliga soonta un baa laga yara deyn lahaa calaa ayi xaal anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa hawshani Soomaaliya sida aad uga hadasheen horta way ka qoto dheertaa fiidiyoyada yar aad aragteenna ama intan aad macnaha idinku aad maqasheenna way ka weyntaa anigu inta aan ogahay hadda ma garata xaqaa'iqa ana intaa way ka badanta marka waxaan oran lahaa dadka social media la yaacaya Cabdi Ciise la dhibaateey iyo Safiya la dhibaateey iyo dad baa la duuba iyo kuwa kala la soo wada waxaan oran lahaa dadka beenta laga daayo qofkuna sidiisaba sharaftiisa iyo karaamadiisa isagay ku xidhan tahay inuu ilaashado cidna uma ilaaliso Cabdi Ciise hadduu sharaftiisa ilaalinayo hadda ma garata isaga ayaa ilaashan lahaa hadda ma garata Safiyana iyada ilaashan lahayd social media may keenteen qofka social media arrintan keenay dhex keenayna waa Safiya haddii walaal sharaftaada iyo karaamadaada aad u baahan tahay inaad ilaaliso horta marka ugu horeysa arrintaada social media maad keenteen hadda ma garata anaa ku soo wacay intii hawshu anigu wadankan aaday wadankii baan aaday muddaan soo joogay bil baan soo joogay markaan soo noqday kadib baan arrintan ogaaday iyaguna way joogeen Hargeysa joogeen markaan anigu soo marayo Hargeysa joogeen iyadoo ay saa tahay waxa weeyaan qofka la qabsado ee la dhibaateeyo maxaan dhahayay la rakaateeyo ee la afduubtaay noocan ma noqdo hadda ma garata Safiyana anigu u malayn maayo kana weyn qof la afduuban karo oo waliba wiil yari afduuban karo hal qof afduuban karo hal qof Cabdi Ciise Safiya hadday imika labadoodu iskalaan iyadaba ka xoog weynaanaysaba idinkuna waa ila aragteen marka waxa weeye Safiya horta Cabdi Ciise kaliya afduubtay oo marba meel geysanaya horta aqalka qofka bini'aadamka ma gari karto hadda ma garata aqalka qofka bini'aadamka geli mayso waxaase idin sheegaya Safiya qof la afduubto way ka weyntaa Hargeysana magaaladeedii weey ma fahamtay maxaan dhahay haddii taasi dhacdo oo ay xaqaa'iq tahay fiidiyowga imika aan arkay caynkaas haddii xaqiiq tahay oo jirtana dee waqtigii ay Hargeysa joogtay ee ay magaalada joogtay ee ay Boorama tagaysay fiidiyowgani wuu jiray wuu yaalay in la yimaado oo lala golo yimaado oo la yiraahdo ninkii waka waana ay afduubay saasayna ahayd ama wuu i kufsada ma garanaysa ilaa qofku mar hadduu ku afduubtay ama uu ku bireynayo ama ku dhibaataynayo dee waxa weeyaan waa meeshii ugu dambeysay weeye waa dilku ama hanjabaada dilku waxa weeye isku day dil weeye ma garanaysa marka haddii taasi jirto horta arrintu intan way ka marweynaan lahayd muddo macnaha wax intan ku kooban may noqoteene way ka marweynaan lahaydo wax weyn oo intan ka weyn bay noqon lahayd haddii fiidiyowgaas xaqiiqo yahay uu jiro oo fiidiyow la soo jarjaray oo ay ugu tala galeen oo inta habeen iyo maalin waxbay duubayeen oo anna waa iyana way ogaayeen waxbay duubayeen habeen iyo maalinba marka hadday suuqa u yar baxaan waxbay duubayeen wixii oo fiidiyow ahaana waxa weeye way hayaan haddii wixii la soo jarjaro qaladaad badan baa laga helayaa la oranaya war kana qaldan iyo kana qaldan marka fiidiyowyadiina soo jarjarsan intaad naga daysaan ilaahay intaad ka baqdaan dadkan sooman dhibaatada ka daaya aadna waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu